Magacayga waa Cabdiraxmaan, ku soo dhawaad muuqaal kale oo cusub. Muuqaalkan waxaan ku hadli doonaa doorka ganacsiga ee horumarinta dhaqaalaha dalka. Waddan waliba waxaa ku jira tiro badan oo ganacsato ah, kuwaas oo meherado maalin walba sameeya. Inaad tahay ganacsade ma ahan mid fudud. Ma ogtahay in ganacsigu uu qayb weyn ku leeyahay horumarka dhaqaale ee waddan kasta? Saamaynta horumarka dhaqaalaha adiga oo ganacsade ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in wax badan ku biiriso horumarka dhaqaalaha ee waddanka aad ku nooshahay. Ma doonaysaa inaad wax ka ogaato? Kuwani waa doorarka ganacsiga ee horumarinta dhaqaalaha. 1. Abuurista shaqaale. Ganacsadayaashu waxay bilaabaan meheradooda oo ay shaqaaleysiiyaan dad badani. Mar haddii ay horumarin karaan ganacsigooda si heer sare, waxay shaqaaleysiin doonaan dad kale oo iyaga ka caawiya. Sida aan ognahay, shirkadaha qaarkood waxay u baahan yihiin xirfado gaar ah si ay uga qayb qaataan. Inkasta oo ganacsatada qaar ay shaqaaleeyaan dad badan oo leh xirfad asal ah oo inta badan uga baahan yihiin, waxay la micno tahay inay abuuraan shaqo si ay uga caawiyaan qof inuu helo nolol wanaagsan. 2. Horumarinta tayada nolosha. Inkasta oo ganacsadayaasha ay qaataan koox dad ah inay la shaqeeyaan, waxay la micno tahay inay siiyaan shaqaalahooda fursad ay ku helaan nolol wanaagsan. Waxay leeyihiin mushaar bil kasta, waxay buuxin karaan shuruudahooda nololeed, waxay iibsan karaan wax kasta oo ay u baahan yihiin, waxay bixiyaan wax dheeraad ah xagga wanaajinta tayada nolosha qofka. 3. Kordhinta dakhliga shaqsiyeed. Waxaad dhihi kartaa in dakhliga soo gala qofka uu kordhayo, halka dhaqaalaha uu dal gaar ah si wanaagsan u korayo. Mar haddii ay bulshooyinku helaan dakhli ku filan bishii, wadarta dakhliga qof kasta ayaa kori doonta. Waxay ka dhigaysaa dadka ku xeeran meheradooda inay sidii hore ka sii fiicnaadaan. 4. Caawinta kobaca xarumaha kaabayaasha. Inkasta oo ay jiraan warshado, haddana markii ay ku yaallaan gobol gaar ah, waxay ka caawisaa gobolka wax badan inay ku koraan dhismahooda kaabayaasha. Aasaasidda ganacsi ee gobol gaar ah, ujeedadiisu tahay in lagu kobciyo xarumaha kaabayaasha, dhismooyinka kaabayaasha sida dhismayaasha, warshadaha, buundooyinka iyo waddooyinka. 5. Dhoofinta badeecada. Markaad socodsiiso meherad, waxaad u baahan tahay inaad haysatid fikrado badan oo aad u fiican si aad u ilaaliso kobaca ganacsigaaga. Maalmahan waxaa jira fursado badan oo aad ugu diri karto badeecadaada waddamo kale. Kaliya hubso inaad ogtahay waxa ay tahay inaad sameyso ama aadan sameynin si aad u dhoofiso badeecadaada, iyo sidoo kale shuruudaha sheyga laftiisa. 6. Kordhinta dakhliga qaranka. Mar alla markaad badeecadaada ka iibiso waddamo kale, waxaad kordhinaysaa dakhliga waddankaaga. Sidoo kale waxaad ku biirinaysaa dadka kale ee waddankaas inay wax ka ogaadaan ummadda ku nool dalkaada iyo dhaqankooda iyo hidahooda. 7. Adeegsiga tiknoolajiyad cusub. Maalmahan waxaad aragtaa ganacsato badan oo adeegsanaya tiknoolajiyad cusub si ay ganacsigooda si wanaagsan ugu maareeyaan ay horumar ugu sii sameeyaan.